بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وفاطمة وحين كهذا إن شاء الله فيتامين سي. فيتامين سي وحو كمدي هاي وحيالها أقومه مسن نفقوين كأه كمدة فيتامين ذا. فيتامين سي waxtarka uu u leeyahay xubnaha bini'aadanka waxa kamida oo awood buuxda u leeyahay inuu kala dagaalamo jirkaaga infectionka. waxa kale oo kamida sida nabraha ama boogaha inuu bogsiyo oo awood buuxda u leeyahay. waxa kamida fahanka maskaxda sida dadka ilowshaha leh inuu u soo celin karo maaragtay fahanka waxana uu ka qaato oo awood buuxda u leeyahay oo maaragtay isha waxtar buuxda uu ka qaato. waxa kale oo kamida lafaha sida lafan xanuunka oo kale ama maaragtay dadka lafaha jajabaan oo kale ama rheumatismada oo kale qaba ayaga qudhigooda maaragtay isha u fiican lafaha awood xagga caafimaadka aad iyo aad ugu fiican yahay. waxa kale oo kamida uu fiican yahay fitamiin C-ga kaliyaha. waxa kale oo fiican yahay fitamiin C-ga bararka ama maartay inside-ka oo kale gudaha hoose ee maartay isha bararka haduu ku baro uu wanaagsan yahay. fitamiin C-ga waxa laga helaa qudaarta qaarkood sida liinta, oranjiga, barbarooniga iyo qudaarta cagaaran. qudaar fara badan ayaa laga helaa fitamiin C-ga. marka dhageysta hadii ay ku soo gaarto ku dadaal fitamiin C-ga. fitamiin C-ga wuxuu kamid yahay fitamiinada ugu muhiimsan ee u baahan yahay qofka bini'aadanka aad iyo aad maartay isha important u ah oo muhiimka ah waliba nafaqooyinkana maartay isha ayuu kamid yahay. waxa kale oo fitamiin C-ga u fiican yahay hargabka, infectionka, qufaca iyo dhammaan maartay isha anemiyada waa taqaan dhiig yaraanta. waxa kale oo fiican yahay marinka dhiigga xididada yaraada oo maartay isha yaraado oo kale xididada ayuu xitaa u fiican yahay oo caabuqa uu kala dagaalamaa. waxa kale oo fiican yahay fitamiin C-ga hadii uu ku soo ataagi lahaa cudurro ama infection. hadii aad fitamiin C-ga jirkaaga isu dheelitiran aad haysato difaac xoog badan baad haysataa. marka ku dadaal qudaarta fitamiin C-ga uu ku jiro ha ku dadaalin kiniinada inaad ka soo gadato stoorka laakiin waxaad ku dadaashaa inaad soo gadato qudaarta sida liin dhanaanta, liin bambeelada, liin maartay isha liinta kale oranjiga ah ee liin macaanta ah. hadaad cuni karo oo sokor qabtana ku dadaal liin dhanaanta oo kale qudaarta lagu ogol yahay fitamiin C-ga ku jiro oo waa qudaar badan. insha Allah ku dadaala walaalayaal waa very important aroor kasta oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu keeno inaad cunto fitamiin C wax uu ku jiro. siiba liin dhanaanta, bambeelada, oranjiga hadaad macaan qabto liin bambeelada, liin dhanaanta hadaadan qabina aad iyo aad ugu dadaal miraha ay ku jiraan fitamiin C-ga. fitamiin C-ga wuxuu kamid yahay nafaqooyinka important u ah boodhigaaga ama jirkaaga ama maartay qofka bini'aadanka. xitaa maskaxda brainka ayuu u fiican yahay fitamiin D-ga. qofka fitamiin D-giisa isu dheelitiran yahay maartay isha brainkiisa aqligiisa ma guuro waxna ma iloobo. marka fitamiin C-gu xitaa maartay afka haduu caabuqaaga dhasho sida ciridka oo kale, ilkaha oo kale, waxyaalo badan, lafaha, kaliyaha, maartay isha lafa xanuunka, maskaxda maartay xagga aqliga brainka waxaas oo dhan wuu u fiican yahay. marka waxa loo baahan yahay fitamiin C-ga waxyaalo aad iyo aad u badan ayuu maartay u fiican yahay awood badanna uu leeyahay. infectionka oo kale ka hortag weeyaan. kansarka cudurka loo yaqaan wuxuu kamid yahay noocyaha disease-ka uu kamid yahay xitaa wuu ka hortagaa wuuna la dagaalamaa fitamiin C-ga. marka dhageysta ku dadaal fitamiin C-ga meesha aad sokor ka cuni lahayd. Soomaalida waxay u badan tahay inay shaaha macaan cunto iska daaya sokorta iska